dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada u ah dalka Soomaaliya ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay maalinkii labaad ee Ciidul Adha iyagoona si weyn ugu damaashaday xeebta Lido oo kamid ah goobaha loo dalxiis tago warbixintani waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar. halkan waa xeebta Lido ee magaalada Muqdisho maanta waxa uu soo dalxiis tagay kumanaan qofood oo ka kala yimaaday degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale dadka halkan yimid waxa kamid ah dad badan oo qurba joog ah oo muddooyinka ugu dambeeyay dalka ku soo laabtay dadka sidoo kale waxay isugu jiraan haween caruur iyo waliba dad waaweyn qaar kamid ah dadka halkan u soo dalxiis tagay ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan qaabka ugu damaashadayaan halkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وماريا محانا جوغا مقدشة حيبتا ليدو عيد وناكسن قيارتيدو all my family واردكيغا خاصة سلامة يا نيروبي جوكتو وحان كيما هذا نيروبي عيد وناكسن. السلام عليكم. أدبان أفرح صنعي وعيان كايستني ويحان كايستني حمر معهن وميل سيفة وميل باشارة maxaan ku dhahay liido iyo joostrootin naqsatagna waa farxadna sanay dadka dibadaha joogan waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Male safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurubka jooga waxaan leeyahay iyo Mareykanka everybody meelaha joogan wadanka qurbaha wadankeena imaada. magacay waa Faisal Ali Nuur waxaan joogaa xeebta Lido waxaan soo maalinta labaad Ciidul Adha runtii farxad gaar ah ii tahay inaan imaado xeebta Lido aniga ku damaashaaday maalinta labaad Ciidul Adha si gaar ahaaneed aniga waxay ii tahay farxad gaar ah sababtoo waxaan bartaa kulliyadda Marine Science inaan soo booqdo badda aan ka soo qayb galo farxadan ballaaran sababtoo ah waxa aan baranayo waxay tahay kulliyadda Marine Science qiimo gaar ah ii tahay intaan bulsho oo Soomaali ah ku faraxsan Ciidul Adha ku dabaaldegaysa ciid maxaa la yiraahdaa xeebta beach Lido. Thank you. sidoo kale dadkaan halkan kula kulanay waxa kamid ah dad isugu jira caruur iyo waliba dad waaweyn oo qurba joog ah kuwaas oo ku faraxsan in ay dalka ku soo guriyo noqdaan sidoo kalena ay ku ciidaan. Assalamu alaikum. My name is Hanan. I came from Minnesota. I like to swim. I love Muqdisho. It's very nice. It's very nice. Very safe. And safe and pretty. I came from Minnesota, Brooklyn Park. And I came here to see my family members. And I like it here. Assalamu alaikum. ومقعي دوان نوردين وعكي ماذا Minnesota. حمرات تميز وعمل فيعن. السلام عليكم. مدعي بلال مرسل جامع مقدشة إمادي Minnesota كي إمادي هذا مقدشة آذي هذا وفيعن. أنت وحا جوجنا ليدو وفرحنا ودوالنا وانت وعيد مبارك وميل قرحان حمر سيف وميل فيعن. dadka dibadaha joogan waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Male safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurubka jooga waxaan leeyahay iyo Mareykanka everybody meelaha joogan wadanka qurbaha wadankeena imaada. Maxamuud Axmed waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Cabdicasiis oo ay ku taalo xeebta Lido wuxuu u hambaliyay dhamaanba dadka maanta u soo dalxiis tagay xeebta Lido xilli maanta loo dabaaldegayo maalintii labaad ee munaasabadda Ciidul Adha. muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Cabdicasiis waxaan leeyahay ciid wanaagsan عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله عيد هذا إله نوجرسيو نبضان يهرب مركان متكسي وناكسن رنتي سيدا أوجكتان وحن أدير جرونا إن معرتي حوجنو أمانك حبت الليدو أو إسكوي معنا تضوي تمكن دق مقابل كبنادر ضدك كسعودي يقول بجوكتان أمانتود وأكتين ضدك أو طلقنا إن نوي مادن لو جبار كده إمانت نوي مادن وعمل كانوا حديار ويا ضدك إن سودو ويسو
ammaanka magaalada muqdisho oo haatan ah mid aad u wanaagsan sidoo kalena la isku halayn karo ayaa sababay inay dadku u dalxiis tagaan meelaha ugu qurxoon magaalada oo ay ka mid tahay xeebta liido sidaas waxaa qaba gudoomiyaha degmada Cabdicasiis Muxudiin Ismaan Cariif waxaa moodaa sanad kasta ama ciid ka dambayda isbedel weyn ayaa ka muuqda magaalada muqdisho waxaad arkaysaa amnigii hay'adii amniga oo sidii la rabo amniga sugaya sida booliiska nabad sugiddi oo isugu jira kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon dhammaan waxay xoogga saareen dadka damaashaadaya ama dadka dalxiisaya ee amnigooda la waxyeelayn annaguna ka maamulahan waxaan u taaganahay 24 saac in si ugu wanaagsan lagu ciido lagu damaashaado lagu dalxiiso marka waxaan leenahay sanadkaas tartiiskana waxaan leenahay barwaaqo iyo balfashiya barwaaqo xeebta liido ayaa sidoo kale waxaa ku yaala baarar waaweyn oo ay dadku ku nastaan marka ay ku dabaashaan badda maxamed kaafi sheekh abukar Somali Cable TV xeebta liido magaalada muqdisho حمرات ميد وعمل في عن السلام عليكم مدعي وبلال جامع بلال مرسل جامع مقدشة إمادي من الصورة كإمادي هذا مقدشة هذه هذا وفي أنت وحاجونا ليدو وفرحنا هاي وادوالنا وانت وعيد مبارك ومال قرحون حمر سيف ومال في عن dadka dibadaha joogana waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Mail safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurub ku jooga waxaan leeyahay iyo Mareykanka iyo everybody meelaha joogaan waan u faraxsanahay wacyigaan ka haysanay iyo wixii aan ka haysanay xamar ma ahan waa meel safe waa meel baashaala maxaan ku dhahay Liido iyo Josdurwatan meel ka tagnay waa farxadanahay dadka dibadaha joogana waxaan leeyahay please don't miss out the beautiful Lido. Come and visit us inshallah. It's a beautiful place. Mail safe ahwaye. It's our country. It needs us. So everybody come here. Thanks. dadka Yurub ku jooga waxaan leeyahay iyo Mareykanka iyo everybody meelaha joogaan wadanka qurbaha wadankeena imaada magacay waa Faisal Ali Nuur waxaan joogaa xeebta Liido waxaan soo maalinta labaad Ciidul Adha runtii farxad gaar ah ii tahay inaan imaado xeebta Liido aniga ku damaashaaday maalinta labaad Ciidul Adha si gaar ahaaneed aniga waxay ii tahay farxad gaar ah sababtoo waxaan bartaa kulliyadda Maritime Science inaan soo booqdo badda aan ka soo qayb galo farxadan ballaaran sababtoo ah waxa aan baranayo waxay tahay kulliyadda Maritime Science qiimo gaar ah ii tahay intaan bulsho oo Soomaali ah ku faraxsan Ciidul Adha ku dabaaldegaysa ciid maxaan yiraahdaa xeebta beach Lido. Thank you. sidoo kale dadkaan halkan kula kulanay waxa kamid ah dad isugu jira caruur iyo waliba dad waaweyn oo qurba joog ah kuwaas oo ku faraxsan in ay dalka ku soo guriyo noqdaan sidoo kalena ay ku ciidaan Assalamu alaikum. My name is Hanan. I came from Minnesota. I like to swim. I love Mogadishu. It's very nice. It's very nice. Very safe. And safe and pretty. I came from Minnesota, Brooklyn Park. And I came here to see my family members. And I like it here. Assalamu alaikum. ومقعد ونردين وكإمادة Minnesota. dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada u ah dalka Soomaaliya ayaa maanta si weyn ugu dabaaldegay maalinkii labaad ee Ciidul Adha iyagoona si weyn ugu damaashaaday xeebta Liido oo kamid ah goobaha loo dalxiis tago warbixintani waxay inoo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Kaafi Sheekh Abukar halkan waa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho maanta waxaa u soo dalxiis tagay kumanaan qofood oo ka kala yimaaday degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale dadka halkan yimid waxaa kamid ah dad badan oo qurba joog ah oo muddooyinka ugu dambeeyay dalka ku soo laabtay dadka sidoo kale waxay isugu jiraan haween caruur iyo waliba dad waaweyn qaar kamid ah dadka halkan u soo dalxiis tagay ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan qaabka ugu damaashadayaan halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وماريا
maxaana joogaa muqdisho xeebta liido ciid wanaagsan akhyaartayda all my family waalidkayga khaasatan salaamaya nairobi joogto waxaan ka imaaday nairobi ciid wanaagsan assalaamu calaykum wadanka qurbaha wadankeena imaada maxamuud axmed waa gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdicasiis oo ay ku taalo xeebta liido wuxuu u hambaliyey dhammaanba dadka maanta u soo dalxiis tagay xeebta liido xilli maanta loo dabaaldegayo maalintii labaad ee munaasabadda ciidul adxa muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Cabdicasiis waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr insha Allah ciidan ciideeda ilaahay nagu gaarsiiyo nabadan iyo horumarkan mid ka sii wanaagsan runtii sida u jeegtaan waxaan u diyaar garownay inaan maartay aan xoojino ammaanka xeebta liido oo iskugu imaanayaan 17 degmo gobolka Banaadir dadka ka socday qurba joogta dhamaantood oo ogtiin dadka ugu talagalnay inay noo yimaadaan laba jibaarkeeda maanta noo yimaadeen maamulkan wuxuu diyaar u yahay dadkaas inay soo dhaweyso ammaanka magaalada muqdisho oo haatan ah mid aad u wanaagsan sidoo kalena la isku